weynaha oo aan saamayn weyn ku yeelanin hanaanka had iyo jeer ay siyaasaddu u socoto maskaxda inaan tuujino nidaamka inaan abuurno dhinacyada kala duwan oo ka hirgeli karana aan inagu keenno haddii ilaahay yiraahdo kulan keenana aanu muxuu ahaa ku gabagabayno shax iyo khad dhigan oo aragti dheer leh oo mustaqbalka haddii ilaahay yiraahdo haddii uu Axmed Nuur wasiir noqdo iyo hadduu muxuu ahaa Carabi ra'iisul wasaare noqdo aanu waxba ka bedeli karin wax u dhigan ummadda Soomaaliyeed oo la og yahay wadada ay qaadayso madaxdu ay ku dari karto hoggaan fiican hanuunin wanaagsan iyo horumarin aanay wadada ka leexin karin taa inaga la inooga fadhiya haddii ilaahay yiraahdo isagoo maskaxda furan aynu ku tala gashanahay aan bilaabano kulankeena aan ku tala galno in mas'uuliyad weyn ayna saaran tahay aan isla celcelino hanaanka uu hadda u socdo horumarka dalku iyo higsiga dheer sidii aynu qayb weyn uga qaadan lahayn haddii ilaahay yiraahdo soo dhawaada akhyaarta sida ay walaasheen hooda sheegtay waxaan rabnaa haddii ilaahay yiraahdo inaan inagu noqono miithaalkii maamul wanaagga dalka waxaan ku noqon karnaa waqtiga inaan kaga dhabayn telefoon inayna ku mashquulin shaqo ka munaasabsan ama ka muhiimsan midan hadda aynu isugu nimid agaasimaha dalka ma joogo haddii aynu inagu si quman waan xogaa markii aan curinay fikradan ee nidi aan isu nimaadno in agaasimayaasha la xiriiray wax laga naxay ahayd in agaasimayaasha oo dhan ay yiraahdaan weligeena isuma iman weligeena intaanu isu nimid oo nu shirnay isma ana weydiinin agaasimayaal anagoo u dhan xageen dalka u wadi doono sharaf bay marka aniga inta inaan ka soo qayb qaato kulanka ugu horeeyay agaasimayaasha isugu yimaadaan waa inuu noqdaa marka mid mira dhab dhala haddii ilaahay yiraahdo sidaa uu midhaha ku dhalina waxay ku noqon kartaa inaynu ahmiyadiisa siino marka fadlan maalmahan soo socda aan haddii ilaahay yiraahdo isu dul qaadano waan ognahay madaxda ayna soo wici shacabka ayna soo wici hawlo fara badan baa nin ruux walba u yaala shaqo fara ballaaran baa ka soo tagteen laakiin kaliya waxaynu muxuu ahaa kaga dhabayn karnaa waxaan rabnaa inaan qabano in aynu waqti siino aan dalka u fikirno fikirka aan qoraal u bedelno wax la taaban karo aynu haddii ilaahay yiraahdo meel u dhigno dalka deedna ku shaqeyno sidaas aan u hirgelino idamka ilaahay amniga uu inoo sugan yahay noo dulqaata haddii soo gelida iyo magaranaysa la isku yar ciriiriyay waa in uu seminaarkeenu si fiican u qabsoomo yaan uga jeednaa haddii ilaahay yiraahdo telefoonada waynu iska daminaynaa maanta iyo berri wixii cashareen kala baranaynaa haddii ilaahay yiraahdo maalinka ku xigtana walaaladeena maamul goboleedyada agaasimayaasha aynu waqti fiican isla qaadan doonaa maalinka sabtida ana haddii ilaahay yiraahdo ra'iisul wasaarihi inaga waqti fiican isla qaadan doono deedna waxaynu kala anba bixi doonaa isagoo oo ay inoo cadahay tubta iyo wadada ay Soomaaliya qaadi doonto mustaqbalka soo socda haddii ilaahay yiraahdo sidaas uu inoogu furan yahay kulankeenu. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.